warmurtiyeedka ayaan hore ka gelaynaa waxaan leenahay shirka nabadaynta gobolka mudug ee beelaha sacad iyo leelkase iyadaan waxaan ka qabaa sacad leelkase baan u gudubnay sacad leelkase wajigiisii labaad ee galdagob waxaa ka furmay magaalada galdagob shirka nabadaynta gobolka mudug ee beelaha walaalaha ah sacad iyo leelkase wajigiisii labaad taariikhdu markay ahayd 29 juun 2020 shirkaasoo horey loogu bilaabay in lagu qabto degmada galdagob si loo dhammaystiro wajigiisa labaad ee heshiiskii bandiiradley ku dhex maray labada beelood ee walaalaha ah ee sacad leelkase waxaa ka soo qayb galay shirka galdagob erga kor u dhaafta 500 oo qof oo ka kala socota labada beelood matalayana dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ciidamada siyaasiyiinta isimada nabadoonnada aqoon-yahanada ganacsatada dhalinyarada iyo haweenka oo dhammaantood u helanaa nabadda gobolka mudug gaar ahaan talabaadna labada beelood ee kor ku xusan wajigiisa labaad ee shirka oo si rasmi ah uga furmay 29 juun 2020 wuxuu socday ilaa iyo 7 Juulaay oo ah muddo dhan 9 cisho muddadaasna waxaa lagu arrinsanayay shirka qodobada hoos ku xiran number 1 kala qaadashada qaybta koowaad ee magihii horey bandiiradley loogu soo heshiiyey number 2 muddaynta wajigii labaad ee kala qaadashada magta rafisada ah 3 go'aanka gaarista dhaawacyada kala gaaray labada beelood 4 go'aanka gaarista dhiigga iyo dhaawaca lagu muransanaa 5 kormeerka goobaha deegaanka labada beelood 6 go'aanka gaarista arrimaha dhulka iyo deegaanka muddadii uu socday shirkana waxaa la qaatay qaybtii koowaad ee magta ee loogu magac daray agoon koriska oo dhammayd $10,000 waxaa qaatay 40 qof bay ahaayeen dadku hal qof mooyaane intii kale way qaateen waxaa qaatay 40 qof ayaa qaatay qof ayaan qaadan agoon koriskii dadku ay wada ogyihiin 39 waa la qaatay halkaa waxaa ku socday $390,000 ee xaflad ballaaran oo loo sameeyey makala qaadashada tiradaas oo dhammayd ergada ka soo qayb gashay shirweynaha waxay isku raaceen in muddo 60 casho ah oo ka bilaabanaysa maanta oo ay labada beelood ku kala qaateen qaybtii labaad ee magta rafisada ay ku kala qaataan oo magta ku qiimaysan tahay 13,200 qofkiiba waa magta rafisada ah inay ku kala qaataan 60 casho shirweynuhu wuxuu go'aan ka gaaray dhiigga iyo dhaawaca lagu muransanaa iyagoo kaashanaya guddiga culummada ee labada beelood waxaa muddo loo qabtay eegista iyo simidda dhaawacyada labada beelood ee ku beegan xilliga lagu bixinayo rafisada ayaa loo eegayaa dadka dhaawacyadooda loona simaya waxaa xusid mudan muddada uu socday shirku in guddi ballaaran oo ka kooban ciidamada culimada nabadoonnada siyaasiyiinta labada beelood ay booqasho iyo kormeer ku tageen jiidda dheer ee ay wada degaan beelaha walaalaha ah si loo ogaado xaaladda ka jirta deegaanadaas dadweynaha labada beelood oo lagu wacyigeliyey go'aanka nabadda ee ay gaareen labada beelood muddadii lagu jiray kormeerkaasna waxaa caddaatay inay lagama maarmaan ay tahay in guddi farsamo loo saaro halka gaarista arrimaha deegaanka iyadoo laga ambaqaadayo heshiisyadii hore ay u wadaageen beelaha walaalaha ah odayaasha iyo waxgaradka labada beelood waxay ku heshiiyeen in la magacaabo guddi farsamo muddo dhan 45 cisho oo ku soo bandhiga xalka waara ee ku aadan arrimaha deegaanka waxaana lagu ballamay ka hor muddada la kala qaadanayo rafisada in go'aan laga gaaro arrimaha deegaanka iyadoo laga duulayo heshiisyadii hore iyo xaaladda deegaanka shirka wajigiisa saddexaad wuxuu ka dhici doonaa magaalada gaalkacyo sidoo kale waxaa la isku raacay inaan deegaamayn cusub laga samayn karinin inta shirka wajigiisa saddexaad ee gaalkacyo looga ballamayo laguna gunaanadayo arrimahaas qofkii xabaasha qotana isagaa lagu aasaya bulshada sacad beesha sacad waxay mahad ballaaran u soo jeedisay walaalahood beesha leelkase oo u fidiyey gogashaan nabadeed isla markaana muujiyey soo dhoweyn iyo martisoor aad u sarreeya ee muddadii ay ergada beeshu ku sugnayd magaalada galdagob waxaa shirka muddadii uu socday hareereeyey niyad sami damaashaad farxad martiqaad aan kala go' lahayn oo lama ilaawaan ah beesha leelkase waxay uga mahad celisay beesha ay walaalaha ay yihiin iyo ood wadaagga labadaba ee sacad in mugga iyo muqaamka leh ee ay u soo ajiibeen sida mugga iyo muqaamka leh ay u soo ajiibeen
gogashii iyo casumaadii loo fidiyey dhamaystirka wejigii labaad ee shirka nabadeynta beelaha walaalaha ah ergada labada beelood waxay u mahad celiyeen dhammaan dadkii ka qayb qaatay gogashaan nabadeed nabadeynta beelaha walaalaha ah heshiiskan oo horseed u noqon doona nabad waarta oo ka hirgasha dhammaan gobolka mudug iyo geyiga Soomaaliyeed oo dhan shirweynaha labada beelood waxay ugu baaqayaan beelaha walaalaha ah ee Soomaaliyeed inay joojiyaan colaadda dhexdooda ah kuna badashaan nabad iyo walaaltinimo iyo wada jir sida sacadleel kasta oo kale ergada labada beelood ee walaalaha ah waxay u mahad celiyeen guddiga culimada oo kaalin mugle ka qayb qaatay nabadeynta labada beelood ee walaalaha ah iyo xallinta khilaafaadkii u dhaxeeyay sidoo kale waxaa loo mahad celiyay ciidamada amniga ee muujiyay dulqaadka iyo kartida iyo daacadnimada gunaanadkii iyo gabagabadii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beelaha walaalaha ee wadadeed gobolka mudug inay nagala qayb qaataan nabadda ilaaliyaana xasiloonida iyo wada noolaanshaha beelaha walaalaha ah kana shaqeeyaan horumarka iskaashiga iyo xasiloonida gobolka mudug wabilaahi tawfiiq waka horta warmutiyeedkii waxaan ka dhiisinayaa inteedii yaraareed waxa weeye warku uu maaragtay aruursanaa 40 qof oo dhimasho ayaa laga heshiiyey heshiiskan qaalinimadiisa dhaawacna waxaa laga heshiiyey 41 ruux oo loo kala sameeyo 2 bilood 40 qof baa laga qaadanayaa 330 geela waa 1320 geela dadka guud oo laga heshiiyey waa 92 qof ilaahay cirkaan iyo dhulkaan iyo xoolaha iyo geedaha iyo dhagxaanta iyo amwaasha wuxuu u abuuray bini aadanka dadka la yaabaya marka iyadoo oo maaragtay bini aadankii uu taagan yahay in dhul laga hadlo waxay u noqonaysaa maangaabnimo dhulkana innaga ku taagan waana ka heshiin doonaa wabilaahi tawfiiq